بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبرنامجكيني فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. برنامج هو برنامج تضواد لأه وأن سؤالك ويدينه فضيلة الشيخ محمد عبد أمل حفظه الله تبارك وتعالى. asilooyinka barnaamijka waxaad ku soo hagaajin kartaan sanaadiiqda masaajidka ku dhagan iyo emailka ay muasasadu leedahay ihsanmedia@gmail.com. xalqadeenan caawa waa xalqada 23aad. taariikhdu maanta waa 6 bisha 12aad 1437 hijriyada oo waafaqsan 8 bisha 9aad 2016. barnaamijkan cidda uu dhaafo waxay dib mar kale uga dhageysan kartaa webpage-ka ay muasasadu leedahay ihsanmedia.com iyo .net. su-aasheenan caawa waa su-aasha 361. waxa uu saa'ilkan leeyahay: assalaamu calaykum, ma ku tukan karaa masjid qibladiisa uu qabri ku yaallo? بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وما بعد. نبينا صلى الله عليه وسلم وعاك السجن حديث صار الإمام مسلم غير كيبا من حديث أبي مرثد الغنوي، ورسولك صلى الله عليه وسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. قبور تكر كذا هكو فريساننا حق يدنا هؤتكننا. مسلم يا أصحاب السنة كاسو صار سد حداء ابن خزيمة غير كود. حديث كظاهر كي سوحا كم مقضى إن قبور تحق يد اللو تكنين. نهي كظاهر كي سنوح فايدين يا التحريم، وأنا سيدا ودورتي الإمام النووي عليه رحمة الله. بل إسكبرنا في النبي الرسول صلى الله عليه وسلم قبور تدحد إن لقد كذا سيدا الشيخ يا حديث أبو سعيد الخدري رسولك صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. دولك أردن وميل لقد كنكر والصلاة كو أصحيس إلا حبالها إيوه حمامك وميلها لقو قبيست. ساقنا أهل السنة كاسو صاري إلا النسائي مويان. سيداس درادت قبور هي مساجد وحمامك لقلين. قبور تنميل لقو عبادة استمع. مساجد وميل عبادة الله تلقلي. قبور تنميل قوني إليه اسمنا قلان. عبد الله بن عمر با نبي كورني صلى الله عليه وسلم سيدا حديث البخاري ومسلم يسو صارين تلماميو: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. صلاة دينا قار كم إذا قريها كنت كذا وقريها قيب كسية هانا كردقينا قريهنا iyo meelaha aad degantiin sidii xabaalo oo kale, sidii qubuur oo kale ha ka dhigin. bimaana maxaa laga wadaa? qubuurta ayaan salaad lagu tukanin. haddii marka gurigii aan salaad lagu tukanin qabri oo kale uu noqonayo, marka qabri salaad laguma tukado, xaggiisana loolama tukado, dhexdiisana laguma tukado. sidaas daraaddeed waa khata, waana bidca gadaal ka timid in masaajida iyo qubuurta la isdhexgeliyo. mutaakhiriinta keentay arrintaasi ma jirin xilligii salafka ridwaanullaahi calayhim. arrin saxsan marka ma ah. haddii masaajidka iyo qabriga derbi kala gooyo u dhexeeyo ay kala baxsan yihiin, oo derbiga masaajidka mooyaane derbi kale oo qabriga gooyo oo gooni u saara uu jiro ama wadaba u dhaxayso, marka dhib ma leh. laakiin hadduu masaajidka mixraabkiisa ama hortiisa ku dhagan yahay, marka lagu tukan maayo, xaggiisana loo tukan maayo. xadiidka nabiguna sidaasuu tilmaamaya sal alla alay wasalam. nahyiguna waa saddan lidariicati shirki ee maaha siday shaaficiyadu sheegaan
waxa weeyaan waxaa laga baqayaa qubuurta xaggeeda loo tukanayo lagu dhex tukanayo shirki iyo gaalnimo inay dadka keento xaqi ilaahayba loo sarfiyo dadkan qubuurta ku jira sida dhacday taasaa laga taxadaraya wallahu aclam jazaaka allahu khayran.